halkaan naga daawanaysaa waa Somali Media barnaamijka caawa waxa idin xiriirinaya anigu Cabdimaalik Maxamed Askara sida aad ogtiin Soomaalida degan gobolka Minnesota ayaa sanad walba tiradooda kor u sii soconaysa iyagoo ku imanayay siyaabo kala duwan haday noqon lahayd inay qoxoontiyahan ku yimaadaan ama haday noqon lahayd qaraabadoodii qaarayso salaaman oo markaasi ka yimaadaan adduunka meelaha kamida si kasaba ahaatee waxa markaasi jira in Soomaalida degan gobolka Minnesota ururada ugu waaweyn ay ugu talagaleen barnaamijyo markaasi Soomaalida degan gobolka Minnesota ka caawinaya dhinaca caafimaadka hadaba ururka weyn ee lagu magacaabo African Community Service madaxdana uu ka yahay Cabdullaahi Guuleed Nuur iyo urur isagu la magacaabay East African Health Project ayaa labada urur oo isla wada socda waxay markaasi isku dayeen inay soo saaraan barnaamij caafimaad oo Soomaalida ay ka caawinayaan barnaamijkaasi ayaa mararka qaarkood waxay u yeeranayeen doctorada degan gobolka Minnesota si ay markaasi Soomaalida uga daadajiyaan cudurrada waaweyn khatarta ay leeyihiin iyo siyaabaha markaasi looga hortagi karo hadaba barnaamijkan ay ugu talagaleen ee isku yeereen Soomaalida degan gobolka Minnesota ayaa waxa looga hadlay cudurkan la magac baxay dhikarkaasi oo ay laba dhakhtar ay ka ahaayeen speakers waxa loogu yeero afka Ingiriiska mararka qaarkood Soomaaligana loogu yeero dadka iyagu markaasi doonayeen inay ka hadlaan barnaamijka cuduradaasi ayaa waxa soo qaada dhigay si fiican u sharaxay Soomaalida halkaas ugu timid ka daadajiyay su'aalo badan ay weydiiyeen laba dhakhtaradaasi oo kala Dr. Xaraare oo badan ka ah Soomaaliya dhakhtar haatanna ka ah downtown-ka magaalada Minneapolis dhakhtarka weyn ee lagu magacaabo Hennepin County waxa kale oo barbar socday Dr. Bryce oo isagana Soomaalida degan gobolka Minnesota ilaa 14 sanadood daaweynaya bartayna cudurrada gaarka u ah Soomaalida degan gobolka Minnesota mararka qaarkoodna ay kala yimaadaan cudurradaasi wadamadoodii research ku sameeyay Dr. Bryce iyo Dr. Xaraare ayaa isdaafsanayay erayo kala duwan oo ku saabsan cudurkan dhiigkarka Dr. Bryce ayaa badanaa isagu ka turjumayay dhinaca cudurka dhiigga karka waxa keenay iyo siyaabaha looga hortagi karo kadibna Dr. Xaraarena waxa uu ku turjumayay afka Soomaaliga soo mararka qaarkoodna ku sii darayay cilmi faahfaahsan oo ku saabsan cudurkaasi dhiigkarka hadaba labadooda dhakhtar intaysan hadlin ayaa xarunta weyn ee gobolka Minnesota ku taala headquarter-kooda African Community Service ayaa waxa markaasi ku soo dhaweeyay gudoomiyaha ururkaasi Cabdullaahi Guuleed Nuur ereyadiisana waxa ka mid ahaa sidatan marka xiga arintan aanu qabanay ugu talagalnay inaan labadan dhakhtarna keeno waxa iska kaashaday laba urur oo midna la yiraahdo African Community Services midna la yiraahdo African Healthy Project oo labada nin ay madax ka yihiin labadan dhakhtar baa ururkan abuuray ujeedadiisuna waxa weeye in dadka looga waramo waxa caafimaadkooda khatar ku noqon kara iyo waxa caafimaadkooda u wanaagsan rajayna in dadweynaha kale u gudbistaan idinkuna si fiican uga faa'iideysataan waa insha Allah haddana waxaan inoogu dhiibayaa walaalkeen dadka kale ee daawan doona TV-ga daawan doona waxaan ka codsanaynaa inaanay dayicin oo dhayalsan daawashada iyo fahamka barnaamijkan uu leeyahay barnaamijkan waa barnaamij caafimaad ku saabsan loona baahan yahay qof kasta inuu fahmo kuwa TV-ga ka daawanaya iyo kuweena hadda nala joogaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Dr. Xaraare ayaa isagu qaatay ereygii ku soo dhaweyntii ku soo dhaweeyay Soomaalida halka iskugu timid iyagu waqtigooda u soo horeeyeen markaasi dhageystaan cudurkan dhiigkarka ama markaasi doonayeen inay ka faa'iideystaan labadan dhakhtar ee halkaasi iskugu yimid ayaa waxa ka mid ahaa ereyadiisii Dr. Xaraare sidatan calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxa way darsigeena maanta wuxuu ku saabsan yahay cudurkan la yiraahdo dhiigkarka iyo wuxuu yahay iyo waxa sababa iyo waxa sayto طبعا taas markii dhiigkar iyo cudurkiisa laga hadlaayana waxa la xiriira ma artay cudurrada xidid mareenada oo dhan marka taas Dr. Bryce ayaa noo bilaabay ana waa neef sariya markaas wixii su'aalaha qabtaan oo dhan waan iga jawaabeynaa Dr. Bryce muddo 14 sano ku dhow ayuu Soomaalida ku daaweeyay isbitaalka Hennepin oo kliiniga Soomaali kliiniga ilaa ninka madaxda ka awaaya hadda wuxuu marka qabiir ku noqday in xataa Minnesota oo dhan qof kasta oo qof Soomaaliyeed daaweynayo isaga intuu soo waco la tashto sababta waxa waaye qof marka qoomiyad daaweynaysid ama dhibaatada haysata u badan ama waxyaalaha u badan aqoon fiican baad u yeelanaysaa marka waa meel aad iyo aad u fiican ama dabci ahaan ama magaciisa runtii muddo fara badan Soomaalida aad daaweynaya dad Soomaali oo fara badan aad u caawiya oo u magaciisiya marka hadda isagan ku soo dhaweynaya darsiga welcome Dr. Bryce Mahat Sanat and salam alaikum. So I can talk about high blood pressure in English, and what I know some of you do understand English quite well. So then Osman will repeat, I think. Okay.
high blood pressure is one of the most common health problems that adults have. And the definition is a blood pressure above 140/90. And the first educational point that I want everyone to understand and leave here with is if your blood pressure is higher than 140, the top number, over 90, the lower number, you should then be working with a doctor on that. yiri maanta darsiga aan ka hadlayno waxa waaye dhiigkarkana waxaa loo yaqaanaa markii cadaadiska dhiigga uu ka bato 140 ilaa 90 dhiigga marka la cabirayo kor lambar kore iyo lambar hoos u leeyahay kan kore markuu ka bato 140 kan hoosana 90 u dhaafo markaas ayaa waxaa la yiraahdaa qofkan dhiigkar ayuu qabaa. gabagabadii barnaamijkan ayaa waxaa markaasi ay weydiiyeen Soomaalida degan gobolka Minnesota su'aalo dhowr oo ku saabsan cudurkan dhiigkarka iyagoo su'aalihii weydiinayana sida ay u weydiiyeen waa kan karka iyo xanuunka liyaado isfiilatadu ma laba cudur baa mise waa isku cudur waxaan isku hayaa xanuun aan garan waayay isxoq ah hurda la'aan ah marka labada xanuun liyaado isfiilatada cadada badan iyo dhiigkarku inay isku xanuun yihiin inay kala laba xanuun kale waan fakaraa si xun baan u fakaraa markaan meesha kafeega lagu kariyo tagana dadka meesha jooga qofba qofka kale ka xanaajinaya oo caayaya ama meelka si u xanaaqo meelka qandhuufanaya taasu problem gurigeena cidlay ugu yahay meesha inaan ka caraa noqoto aad u dhibaato ay haysa weeye